sida yaanyadan oo kaleento waxaan gadnaa $1 iyo bar $2 marka uu qaaliyoobay wax kari kara ma laha haddana uu yaraaday webigu biyo yareeyay oo garanmayno wax xaga $20 $30 la gaday laakiin hadda $2 waxay kala hadlay halkan waa suuqa qudaarta ee dabageed ee magaalada Beledweyne halkan waxa dabcan Soomaaliland loo keenay qudaarta kala duwan ee ka baxa gobolada dalka iyo guud ahaanba magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan halkan ayaana la wada keenay qudaarta ee dabcan iyadoo isla markaana halkan ay ku sugan yihiin ganacsato aad u fara badan oo sidoo kale ka ganacsada qudaarta qaybaheeda kala duwan sida yaanyada bocorka iyo dhammaan qudaarta ee halkan la keenay waxa halkan ka soo doonto qudaarta dad aad u fara badan oo guud ahaanba ku sugan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaana loo dhoofiyaa sida ganacsatada qaar ay sheegeen gobolada dalka sida magaalooyinka Gaalkacyo iyo Garowe iyo magaalooyinka kale ee gobolada dalka qaar kamid ah markaas ganacsatada suuqan ku sugan ayaa waxa ay sheegeen saakay in hoos u dhac balaaran ay ka jirto qudaarta lagu iibsanayo guud ahaanba magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan qiimihii ugu hooseeyay waqtigan la jooga waa kuwan qaar kamid ah oo la hadlay warbaahinta sidoo kale faahfaahin kala duwan ka bixiyay qudaarta iyo sida waqtigan loo kala iibsanay hoos dhac horta weyn baa ku imaaday yaanyada markii horanta $20 $30 la gaday laakiin hadda $2 hal iyo bar ninkii oo soo doono oo guryaha ka soo doono jirgaan ayay kala goosanayeen annaga banaankaan joognaa banaankaan joognaa annaga markay qaal ay noqoto aan wax ka helnaa aan salaatadaan Umar loorkaan hadda $12 maran ku helnaa mar waxaan ku helnaa $10 aan ka helnaa aan salaatada xoogoro laakiin yaanyada kabsarto sidoo kale inta hadda xoogo waa yar kacsan tahay basasha camal basal cadeeyda basal gaduud aan kabsarta caleento qudaarta soo dhac weyn baa ku imaan yaanyada anaga qorqo gatanagaan waxaan ku soo qaadanaynaa jamlo tafaariiqan gadanaynaa qorqo dabdilkaas caana booraha $1.8 aan gadanaa wuxuu $1 haafkan store aan gadanaa goboladana waa loo raraa oo gobolo badan baa loo raraa sida Mudug Galgaduud iyo ilaa gaalka maxaan ku raadaa Garowe ayay tagtaa ilaa Boosaaso baabuurta isdaba taagan waa la daabulowaya ilaahay baa keenay bal qudaarta ugu badan oo hadda magaalada soo gasho qudaarta ugu badan waad arkaysaa waa bocorkii yaanyadii qajigii maxaan ku cagaarkii mooska yar oo asagu Itoobiya naga soo gala kolka moosku waa yar yahay aad buu u yar yahay oo culayskii aad u fara badan ayaa gobolkan Soomaalida Itoobiya Shabeelle amba Goday ayuu ka baxaa moosku 8 gobol oo Soomaaliya fuushay iyo Itoobiya marka uu qaaliyoobay wax kari kara ma laha haddana uu yaraaday webigu biyo yareeyay oo garanmayno wax xaga ayadoo xagaaya ayaa webigii biyaha u dhanaan noqda haddana suuqa ilaaha noo nimceeyay ayaantan qudaarta maasha Allah ilaaha noo nimceeyay sida basal cadeeyda raqiis maxaa ku sheega basal gaduud maasha Allah yaanyada bocorka salaatada kabsarta sida maxaa la dhahay qaraha dhammaan maasha Allah qudaarta ilaaha noo nimceeyay maasha Allah maanta nimcaa haysanaa maasha Allah ilaaha noo nimceeyay dadku ku daawana waxa u dulmuqtaa qudaarta sida loo kala iibsanay sida yaanyadan oo kaleento waxaan gadnaa $1 iyo bar $2 sidii hadda maalinkaas ay ku imaato maxaa ku sheega basasha waxaan gadnaa $8 kiiladeeda basal gaduuda basal cadeeyda $8 ayadana kiiladeeda saasaan kala gadnaa waayahay bal qasdac miyaa ka jira magaalada si gaar ah qudaarta Soomaa Boosaaso Garowe Hargeyso maxaa ku sheega tuulooyinkan dhow Cadaado meelahan dhow oo sida oo ii sheeg tuulooyinkan dhow oo dhan qudaarta inay raqiis noqoto annaga maxaa ku sheega faa'iidada kuma qabno laakiin dadweynaha kale faa'iido ku qabaan Liban Subani Daawud idaacadda TV-ga Shabeelle bartamaha suuqa ee dabageed ee magaalada Beledweyne